Chelsea waxay wali ku jirtaa kaliya isugu ciyaarto waxaan arursanayaan dhalinyaro yaab leh oo qatar badan mustaqbal ah Pochettino wuxuu arurinayaa dhowr dhalinyaro cajiib ah horey wuxuu haysteen Modric iyo kale Jago Macao kale dhalinyaro fara badan ayaa la keenay teamkan iminkuna wali ciyaarto kala imaanaya saacad ugu dambeeyay Chelsea waxay gacanta ku dhigtay faaca birta ah shubka ah ee reer Faransiis ninka la yiraahdo Desazi waxayna gacanta yani ugu dhigeen ama ay kula wareegeen lacag dhan 50 milyan marka ninkan goorba Chelsea ku dhawaaqi doonta runtii saacadaha su'aadan soo bandhigidiisa wixii noqon doonta iminku waa heshiiskii hordhac ahaa wayaan oo ninka ay la gaareen iyo teamku ay la gaareen oo ay kala gaareen teamka Monaco marka waa gabagabo xataa Desazi wuu aqbalay ku biirida kooxda kubadda cagta Blue marka Chelsea oo hataa saacad ugu dambeeyna gacanta ku dhigtay nin kale oo qaddex ah oo leeyahay waa fiyaaraha xiga warinka Leslie Ogochogu ninkaasna waxa la sheegay in hadda uu gacan ka gaari doono ninka la yiraahdo Pochettino hadii ninkan ama uu ku diri doono iyo haduu isticmaali doonaba marka Blue dhalinyaro yar bay arunayaan baa leeyahay marka saacad ugu dambeeyay waxa war weyn ah difaacan oo hadda hor ka shaqeey ninkan hadii nin weyn waa ninkan difaacan shubka ah shuudad uu dhalinayna inta kuma yaalaan waa lugtiisa saaruq baa ka baxaysa hadda kan wabani adduunyo dhaqan kare marka ninkan gacanta ku soo dhigeen marka Desazi waa nin weyn oo halis badan runtii marka waa ka arimihii ugu dambeeyay ee kooxda Blue ilaa hadda waxay ku dhibaatoonayaan laakiin ninkii kayseeda ahaayo 100 milyan ay leeyihiin kooxda kubadda